إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ورهرت هل وحل وقال كلبح كتاب كاشي كلبح كتاب كاشي horta inta dhimata allah u naxariisto inta dhaawac matana ilaahay haya siro sidaan ognahay dhammaanteena in badan oo naga mid ah waxa waaye shalay galab casriga kadib ilaa hadda aan kula hadlayo waddo walbo oo muqdisho marto way xirnayd sidee ku dhici kartaa marka sidee ku dhici kartaa inuu qarax ka dhex dhaco warkaalaya maxaa qaldan ma annagaa wareersan ma dowladdan waqtigeeda dhammaadaa wareersan horta mid waa inaad Soomaali isla garataa mid la isla garanayna waxaa waaye warraggan waddooyinkii xirxiraayo oo meel walbo la istaajiyey maxay qabtaan su-aashaas in la isweydiiyo waa qaraxa wuu dhacay ilaahay naga koriyo ilaahayna naga qabto laakiin mid ogaada qaraxa ma ahan mid meesha ka dhex abuurmay waa mid yimid intoo soo mare mala weydiiye qof weydiisa male yaa soo fasaxay maadaama waddo walba xiran tahay yaa soo fasaxay nig maxaa looga duwan haddana in oo imaado dhigta wax loogu sheegaa toban oo leeyahay burburkaa u jeednaa wax meesha ka dhaca u jeednaa xaalad intii la egtaa u jeednaa qof walbo horta ku dhimata allah u naxariisto inta ku dhaawacmata allah u yasiro laakiin waxaa jirto wax in la qarqariyo la rabo oo aan qarsoomayn war intaasaa kaamil aad joogto qof wax su-aal weydiinaysa male wallaahi billah waa ka xumaa yaah waa midda koowaad midda labaad dirito waxaa balan ahayd in la dhigo mudaharaad way baajiyeen taas waxaan u arkaa aniga yaah waxaa maqli jira maamaha ah kaadi badne waa loo gogol badiyaa tan waa tuu ku bixi lahaa dhowr mar ayay dhaarteen dhaartina waa laga burburiyey laakiin wax meeshaan ka soo socdo waa loo wada jeedaa buug hore u aqrisane film hore u fiirsane aadamina lagu soo celin rabaa mana ka yeelin taas
mana ka yeeleyno. dowladdan waqtigeedu waa dhammaaday, taas qof isweydiin karta male. laakiin qora caadadiis in lagaaga saaro manaha u malayn. waxaana niin sheegaynaa raggan magaalo lagu soo wada daadiyey ee afka u wada daboolan ee in shacabkooda ay dilaan loo soo istaajiyey iyo kan waddooyin kale magaalooyin kala joogo kor iyo hoos waa isku mid. cadowga allah naga qabto. soomaalina waxaa u sheegaa in ay tahay waqtigii dulmidiidka. waxaan kusoo gabagabeynayaa dhulka anaa iska leh, dalka anaa iska leh, dhulka anaa iska leh, dalka anaa iska leh, gobolkana unukaa iska leh. hala tustanimeyo qof walbo maalkaaga xafido, dadkaaga difaaco, diintaada difaaco. sheekh idris daa maqlisiteen maanta umulna sida ula hadlo waa ujeedeen. waa mucjiso loo baahan yahay in maalinta khamiista 11 loo soomo inta muslina ee dunida joogto ee Soomaali ah in balaada naga hor qaado insha Allah bilkariim. waa axmed beligo idin leh sidaa ay nabadgelyo.